بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داودي halkan waa barta YouTube ee madasha wararka qodobada warka aad ku daawan doontaan inaan idin soo gudbin doono waxa qayb ka noqonaya guddigii ka tirsanaa golaha wasiirada ee dhawaan loo xil saaray inay baaritaan ku sameeyaan xiriirka ka dhaxeeya madaxweynaha isdoortay ee Jubbaland iyo sidaas oo kale kooxda argagixisada ah ee shabaab ayaa wada baaritaanadoodii ugu dambeeyay. guddigan ayaa baaritaano waxay ku wadaan sidii ay ku suurta gashay in gaadiid dagaal oo ka tirsan Jubbaland ay Raaskambooni soo gaaraan iyaga oo soo dhaxmaray kooxaha argagixisada ah ee shabaab sida la sheegay in ku dhawaadna ku dhul gaaraya 270 kiiloomitir ay markaasi soo mareen oo argagixisadu ay markaasi ka taliso. waxaynu idin soo gudbin doonaa baaritaanada guddigan ay wadaan ilaa iyo haatan natiijooyinka hordhaca ay heleen iyo waxyaabaha ay soo saareen. guud ahaan xogaha daxsoon ee arrimahaasi ku gadaaman ayaan idin soo gudbin doonaa. sidaas oo kale qodobada aad daawan doontaan inaan idin soo gudbin doonaa waxaa qayb ka noqonaya haddaba xagee baa la geeyay ciidankii ka tirsanaa dawladda federaalka Soomaaliya ee Raaskambooni laga keenay Muqdishona la soo gaarsiiyay. guud ahaan waxaynu idin soo gudbin doonaa wararkaas iyo xogo la xiriira ciidamadaas goobaha la geeyay, qoryihii ciidankaas laga qaaday halka la geeyay ma Jubbaland ayaa kala wareegtay masa taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa lagu wareejiyay. waynu idin soo gudbin doonaa warka aynu si wada jir ah ugu daawan doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo. sidaas oo kale qodobada aan idin soo gudbin doono warka yagana aan ku daawan doona. sidaas oo kale daawada waxaa qayb ka noqonaya faahfaahin dheeraad ah waxaa laga helayaa dagaal culus oo argagixisada jab lagu gaarsiiyay oo ka dhacay galbeedka gobolka Hiiraan. dagaalkaas oo la sheegay in xubno sarsare oo saraakiil ah oo argagixisada ka tirsan lagu dilay. guud ahaan wararkii ugu dambeeyay iyo faahfaahinada laga helaya khasaaraha dagaalkaas ka dhashay ayaan idin soo gudbin doonaa oo warka yaga aad ku daawan doontaan. sidaas oo kale qodobadaan idin soo gudbin doona waxaa qayb ka noqonaya xaaladda guud ee magaalada Kismaayo. guud ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada ay halkaasi ka wadaan kadib qaraxyo la sheegay in xalay halkaasi ay ka dhaceen. qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha daqiiqadahan kooban ayaynu si wada jir ah u daawan doonaa daawade. balse aan ku xasuusiyo haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay bartan YouTube inaad subscribe dhahdo gambaleelka aad furato muuqaalkeenana like aad saarto muhiim ayuu noo yahay. qaybta hoose ee faallada ama commentigana aad noogu reebto oraahdaada kaaga aadan wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka aan kuu soo gudbinno. ugu horeyn warkayaga haddii aynu ku bilowno guddigii dhawaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iska soo saareen isla markaasna la qorsheenayo inay baaritaanada ku sameeyaan xiriirka dhaxmaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo kooxda argagixisada ah ee shabaab ayaa ilaa iyo haatan waxay wadaan baaritaano dheeraada oo arrimahaasi la xiriira. guddiga ayaa inta badan waxay sheegeen in baaritaano ay sameynayaan iyaga oo markaasi sidaas oo kale xiriiro la sameynaya isla markaasna adeegsanaya bangiyada iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen. yan ayaa sidaas oo kale waxaa la howlgalaya hay'ado caalami ah oo ka caawinayo in xiriir uu dhaxmaray madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidaas oo kale kooxda argagixisada ah ee shabaab. sidaas oo kale guddiga waxay baaritaano ku sameynayaan isla markaasna xiriiro ay la sameynayaan xubno ku ag dhow madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee markaasi mar kale isdoortay. guddiga waxay sheegeen ilaa iyo haatan inay hayaan natiijo hordhac ah oo la xiriirta in xiriir uu dhaxmaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidaas oo kale kooxda argagixisada ah ee shabaab. waxaana la sheegay in baaritaanada ugu badan markaasi la sameynayo dhaqdhaqaaqyada akoonkiisa iyo sidaas oo kale akoomo kale oo dhowr ah iyada oo lala hadlayo shirkadaha isgaarsiinta iyo sidaas oo kale markaasi xiriiro gaar ah lala sameynayo bangiyada sida aadka ah uu isticmaalo. guud ahaan arrimahan ayaa soo ifbaxeen kadib dagaalkii Arbacadii aynu ka soo gudubnay magaalada Raaskambooni degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ku dhaxmara ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland iyo sidaas oo kale ciidan dawladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi geysay. shakiga ugu weyn waxa uu yimid kadib markii gaadiid dagaal dawladdu ay sheegtay in ay soo dhaxmareen kooxda argagixisada ah ee shabaab isla markaasna weerar ay ku soo qaadeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. dawladdu waxay markaasi sheegtay in markaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe la tuhmayo in xiriir uu la sameeyo kooxda argagixisada ah ee shabaab ay suurto gelisay in gaadiidkiisa si nabad ay ku soo maraan dhul ka badan 270 kiiloomitir si nabad ahna ay ku soo gaaraan Raaskambooni iyaga oo soo dhaxmaray kooxda argagixisada ah ee shabaab inta ay soo marayeen dagaal iyo dhibaato aysan markaasi soo marin. tan iyo markii uu soo ifbaxay arrimaha markaasi la xiriirta waxay dawladda Soomaaliya sheegtay in baaritaano ay sameynayso. khamiistii aynu ka soo gudubnay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya
waxaa lagu eedeeyey dagaalkii ka dhacay Raskamboni. sidaas oo kale waxaa la sheegay in markaasi baaritaano lagu samaynayo lana tuhmayo in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland uu xiriir toos la leeyahay kooxda argagixisada ah shabaab taa oo suurto gelisay in markaasi gaadiidka Jubbaland ay soo dhaxmaraan qaybo markaasi ama deegaano argagixisada ay markaasi ka arimiso. guddiga ayaa ilaa iyo haatan baaritaankooda wada inkastoo aysan weli si rasmi ah u soo saarin natiijada baaritaanka ka soo baxday, iyaga oo sheegay in markaasi weli ay wadaan qorshayaashii ay natiijadaasi ku soo saari lahaayeen. wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka ku soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii Rabbi uu ka raali noqdo. Jubbaland dhankeeda waxay iska jeedisay eedeymahaas dhowrka ah ee loo jeedinayay ee ku aadan in gaadiid dagaal ay Jubbaland leedahay inay soo dhaxmareen deegaano dhowra oo ay argagixisada ka arrimiso kadib howlgalkii markaasi Raskamboni. dagaalkii ciidan ka tirsan kuwa Jubbaland ay ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa. Jubbaland muuqaalo iyo sawirro ay soo bandhigtay ayaa sidaas oo kale waxay ku sheegtay in gaadiidkooda dagaalka uu soo maray dhanka xeebta, sidaasna uu halkaasi ku soo gaaray. sidaas oo kale wasiirka amniga ee markaasi Jubbaland oo hadlayay waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka ka soo yeeray dawladda Soomaaliya ee ku aadanaa in gaadiid dagaal ay Jubbaland ay leedahay in markaasi kooxda argagixisada ah ee shabaab ay markaasi soo dhaxmareen. markanna haddii aynu eegno dagaal beeleedyo culus ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. faahfaahinno dheeraada waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Xarar Hele oo hoos taga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud bartamaha Soomaaliya. dagaalkan oo saaka qarxay ayaa u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed oo ka soo kala jeeda degmooyinka Ceelbuur iyo Gurceel, waxaana la soo tibinayaa in dagaalkaas uu ahaa mid khasaaro culus uu markaasi ka dhashay. haddii aynu eegno geesta kale faahfaahinno dheeraada waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo xubno ka tirsan argagixisada ah ee shabaab jab culus lagu gaarsiiyey dagaalka oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa macamuusleyda ay howlgallo kanana argagixisada ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee shabaab ee ku sugnaa aagga deegaan lagu magacaabo Ceelka Baar ee hoostaga gobolka Hiiraan. wararka ayaa sheegaya in dagaalka inta uu socday lagu dilay xubno badan oo ka tirsan argagixisada oo sidaas oo kalena lagu burburiyay xarumo kooxda ay markaasi lacagaha baadda ah dadka rayidka ay uga qaadi jireen. saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xaquudirirka deegaanka ee macamuusley howlgalkana qayb ka ahaa waxay sheegeen in markaasi lagu qaarijiyo xubno sarsare oo kooxda ka tirsan dagaalkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka dhacay. saraakiisha sidaas oo kale waxay sheegeen in howlgalka uu ahaa mid qorshaysan lagu bartilmaameedsaday goobo xubno ka tirsan argagixisada lacaga baad ah ay kaga qaadayeen dadka rayidka ah si ay markaasi u dhibaateeyaan. sidaas oo kale waxay sheegeen in horjoogihii markaasi ee lacagaha baadda ah qaaday lagu dilo howlgalkaas. gobolka Hiiraan muddooyinkii aynu ka soo gudubnay waxaa hagad galay howlgallada lagu baacsanaya kooxda argagixisada ah ee shabaab ee gabaad ka dhiganaysa qaybo ka mid ah gobolka, balse tani waxay u muuqanaysaa in mar kale dib uu curtay kacdoonkii la doonaya in argagixisada looga saaro goobaha gabaadka ay ka dhiganayaan ee dhaca gobolka Hiiraan. daawada guud ahaan warkii aad kala socotay madasha waa naga intaa waad ku maadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay bartan YouTube aan ku xasuusiyay inaad subscribe dhahdo gambaleelka aad furto muuqaalkeenan like aad sarto muhiim ayuu noo yahay. qaybta hoose ee faallada ama commentiga noogu reeb oorahadaada kaaga aadan wararka iyo warbixinadan kuu soo gudbinayno. muuqaaladayna sii sheer garay oo saaxiibadaada la wadaag. mahadsanid daawade.